aragtida miisaanka damiirka iyo koodhadka nukliyeerka. Koodhadka qarsoodiga ah ee lagu rido gantaalada nukliyeerka waxaa lagu dhex qariyaa kiniini yar kaas oo lagu dhex tallaalayo laabta nin mutadawac ah. Ninkani wuxuu madaxweynaha u raaci lahaa meel kasta oo uu tagaayo isagoo mar walba ku hubaysan mindi af badan. Haddii uu madaxweynuhu go'aansado inuu gantaal nukliyeer ah ku rido waddan cadow ah, waxaa laga doonayaa inuu marka hore mindida ka qaado ninkii u dhowaa kadibna uu toos uga mudo laabta si uu uga soo saaro kiniinigii koodhku ku dhex jiray. Kadib ayuu isticmaali lahaa koodhadkaas si uu u furi karo hubka nukliyeerka ee dalka, taas oo horseedaysa dagaal nukliyeer oo caalamka ku faafa. Balse tallaabadani waxay u baahan tahay in marka hore la dilo qof bini-aadam ah. Marka uu madaxweynuhu dareemo culayska falkaas, taabto dhiigga oo uu weji ka weji u wajaho waaqica dhabta ee falka uu samaynayo, ayuu ugu dambayn fahmi lahaa waxa ay dhab ahaan ka dhigan tahay in bam lagu rido malaayiin qof. Tani waxay keeni kartaa inuu ka joogsado oo uu dib uga fikiro ka hor inta uusan u horseedin dunida burbur baaxad leh, maadaama uu hadda gacmihiisa ku dareemay qiimaha nafta bini'aadamka.